gantaalada ruushku waxay koobayaan meel kasta oo adduunka ah awoodda nukliyeerka cruise missileska iyaga oo wax dilaya ayaan si hore loo arag ay u bartilmaameedsan karaan meel kasta oo adduunka ah sida muuqaalkan kombiyuutarka lagu sameeyey uu hoosta ka xariiqayo inuu gaadhayo bartanka Florida ee dalka Mareykanka markii googooskaasi dhammaaday daawadayaashii madaxweyne Vladimir Putin waxa mar qura ay isla heleen sacabka. hubaasha waa nasiib daro inaynu daawano muuqaalka fiidiyowga ah ee la sameeyey ee kor u qaadaya weerar nukliyeer ah oo lagu weeraro Mareykanka uma tixgelinayno inay taasi tahay habdhaqanka jilayaasha caalamka. dowladda Mareykanku odhaahda ay sheegtay ah inaanay la yaab lahayn sheegashada Putin ee ah in run ahaantii uu horumariyay hubka noocan ah oo ah inuu ku xadgudbay heshiisyadii caalamiga ahaa waxaana xarunta gaashaandhigu ay meesha ka saartay khatar kasta oo Mareykanka soo wajahda. waanu diyaarsanahay waanaanu u diyaar garownay. labadii sannadood ee u dambeeyey diyaaradaha dagaalka ee B-52 ayaa iyaguna bilaabay inay fariin toos ah u diraan dalka Ruushka waxaanay howlgallo ku duuleen markii koobaatan iyo intii laga soo gudbay dagaalkii qaboobaa kadib markii Vladimir Putin uu bedelay taariikhda ee uu ku duulay dalka Ukraine ee uu qabsaday Crimea. haddaba haddii Putin uu ugu talagalay sidaasi ama aan indhaha laga qarsan karin taasi miyay dhisaysaa Mareykanka waxaanu madaxweynaha Mareykanku uu sheegay mar uu dhawaan khudbadiisii ugu horeysay uu u jeediyay dadka dalkiisa. waa in aynu casriyeynaa oo aynu dib u dhisnaa xudunta nukliyeerkeenna. nasiib wanaag weligeen maynaan samayn balse hadda sidii aynu u adkayn lahayn waynu u awoodi lahayn si aynu uga takhallusno gardarro kasta. dhiirigelinta Trump uu muujiyay ayaa laga yaabaa inay jawaab u tahay Putin hase yeeshee labada quwadood ayaa heshiis ku gaadhay in la joojiyo dhisidda iyo horumarinta madaxyada nukliyeerka balse taasi may samayn labada dhinac oo mid waliba waxa uu si hoose u sii watay casriyeynta hubkaasi waxaanu dalka Ruushku uu waqti xaadirkan haystaa 6,800 oo madaxyada nukliyeerka ah halka dalka Mareykanku uu leeyahay 6,600 oo madax waxaanu xajmiga hubka nukliyeerku uu dhammaa 1945 15 kilotan halka uu maanta uu yahay 15,000 oo tan. haddaba ishubaynta iyo gaashaanbuurta uu mid waliba uu waqti xaadirkan uu ku mashquulsan yahay ma laga yaabaa in ay dib u soo celiso dagaalkii qaboobaa. waxaa la og yahay in dowladda Ruushku ay gaashaanbuurteeda xilligan ay ugu cadcad yihiin dalka Shiinaha, waqooyiga Kooriya, Iiraan, Suuriya, Turkiga iyo wadamo kale halka Mareykankuna uu weli gacanta ku haysto dalalka Yurub, Sacuudiga iyo Imaaraadka ee gaashaanbuurta la ah ee ay ka mid yihiin kuwii dhowaanta weerarka ku qaaday dalka Suuriya ee Ingiriiska iyo Faransiisku ay ka mid ka yihiin. bal aynu wax yar dib ugu noqono markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka ee uu bilaabmay dagaalkii qaboobaa waxay ahayd bishii Julaay 1945 markii madaxweynihii dalka Mareykanka Harris Truman uu Yurub u cadeeyay xilligii lagu guda jiray kulankii gaashaanbuurtiisa saddexdii dal ee hogaaminayay awoodda dagaalkii labaad ee adduunka. madaxweynihii dalka Mareykanku waxa uu hoosta ka xariiqay labada taariikhood ee labadii dagaal ee waaweynaa in dagaaladii adduunku ay dhammaadeen balse dagaalkii qaboobaa uu bedelay ujeedooyinka yarina ay dawaqiyeen Truman iyo gaashaanbuurtiisii wakhtiga dagaalka gacan ku hayntii Jarmalka ee la jabiyay iyo xuduudihii dagaalka kadib ee lagu guuleystay Japan ee la hubiyay nabadii u dambeysay ee Yurub. ma jiro dhul nabad ah ama hal shay oo wadamada la socodka ah oo ah in aanu dagaalka kaga gudubno doonayno nabad iyo barwaaqo adduunka oo dhan iyadu ka hirgasha. guushii guud ahaan Jarmalka laga soo hooyay waxay dib dhidibada ugu taagtay nabad Yurub hesho balse waxa khatar ku ahaa korodhka kala duwanaanshaha farqi ee gaashaanbuurta laftigooda oo ka muuqday intii lagu guda jiray shirki
dagaalkii Potsdam oo madaxweyne Truman iyo ra'iisul wasaarihii dalka Ingiriiska Winston Churchill oo ahaa hal dhinac ay ku qaybsameen in dhammaan dalalka Yurub laga sameeyo xorriyado siyaasadeed iyo dawlado dimuqraadi ah oo ka hana qaada dhammaan dalalka Yurub dagaalka kadib saaxiibkoodii dictatorka Sofiyeedka ahaa ee Joseph Stalin ayaa isaguna qorshe kale la yimid oo ah in dhammaan Yurub laga sameeyo dawlado hanti wadaag ah waxaanay gaashaanbuurtu ay ku guuleysteen dagaalka balse saaxiibadood kumay badbaadin nabadda kala duwanaanshaha taariikheed waxay ka dhigtay laba xulafo oo waaweyn dagaalkii qadhaadha ee sanadadii dagaalkii koowaad ee adduunka markii ay isgarbinayeen fikradihii hanti wadaagga iyo furfurnaanshaha dimuqraadiyadda oo dagaalka sababtay bilowgii 1914 dagaalkii koowaad ee adduunka Yurub waxay ka dheeftay dil iyo burbur baahsan awoodihii reer galbeedkuna waxa uu dagaalku ka dhigay mid ay ku saloolmeen ciidamadii Ruushkuna way cadayd inay cadaab ahaayeen oo ay aad u tiro badnaayeen waxaana dagaalka loo soo diray iyaga oo aan haysan cunto rasaas iyo mararka qaar oo ay hub la'aan ahaayeen ciidamadii qalbi jabsanaana waxa ay nafurid ku sameeyeen askartii dagaalka waxaanay soo afjartay in aanu sii jirin kalidii taliyihii Ruushka Tsar Nicholas II 1917 dadkii Ruushku waxa ay ka daaleen dagaal iyo macaluul iyo inay sidoo kale ka daaleen maamulkii Tsar laftigiisa bishii February isla sanadkaasi dibadbax dadweyne iyo iska caabin dhacday ayaa aakhirkii taladii laga tuuray Tsar oo xabsiga la dhigay waxaana xukunka timid dawlad cusub waxaanay ballan qaaday doorashooyin dimuqraadi ah xorriyado cusub iyo in dumarku ay leeyihiin xaq la mid ah ragga kacdoonkii dadka waxaan soo jeedinayaa in aan ka difaaco weerar kasta oo kaga yimaada bidix ama midig Ruushkana waxa ka dhalatay dimuqraadiyad balse muddo kooban ayaa xididada loo saaray dalka Switzerland oo uu ku sugnaa ninka Ruushka ah ee Vladimir Lenin ayaa isaguna qorsheeyay kacdoonkiisii gaarka ahaa ee ku salaysnaa afkaartiisu filosofarkii Jarmalka ahaa ee Karl Marx oo ahaa inay dhacdo sinaansho hantiyeed iyo mid bulsheed oo hanti wadaag ah